أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. إن شاء الله تعالى كلمتنا maanta waxay ahayd su'aal aan isweydiinayno, aan nafteyda weydiinayo maadaama waalid walba oo masaajidka joogana aan rabno inuu isweydiiyo. ilaahay baana doonay su'aashan inaan isweydiino. su'aashaas waxa weeyaan, wiilkaygu ma odhan doonaa laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah? gabadhaydu ma noqon doontaa gabadh muslimada? haddaan kuwan badbaadino kuwa aan awowga u ahayn ma ku taagnaan doonaan tawxiidka? am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii. nebi ka mida nebiyada ilaahay soo diray ajashu u timid, wuu yaqiinsaday inuu adduunkan dhaafayo. shayga keliya qalbigiisa kusoo degdegay maxay ahayd? wiilkaygu ma odhan doonaa laa ilaaha ila allah muxamad rasuulullah? gabadhaydu ma odhan doontaa? marka lay aaso ee janaasadeeda laga soo rogmado, carruurteeda diintoodu maxay noqon doontaa? sidaa darteed buu ilaahay su'aashan qur'aaniga wuxuu rabaa inaan isweydiino, maa tacbuduuna min bacdii? aabba waan dhimanayaa, carruurtiisu u yeedhay. bal waxaad suuraysataa nebiyadii ilaahay subxaana watacaala soo diray oo ajasho u timid, oo markaa hal su'aala keliya qalbigiisu ay ku cusleen. daraasad ay samaysay NPR ba waxay tidhi, qofku markay geerida u timaado wax badan baa qalbigiisa kusoo degdega. waxyaabaha aad qabsan kari weyday, go'aamada aad gaari kari weyday. laakiin haddii maanta ay nagu culustahay su'aasha diinta carruurteennu maxay noqon doontaa? nagu cuslaan mayso geeridu markay timaado. marka qodobkaas way mid taaro inaad joogtaado. haddii maanta waxyaabaha igu muhiimsan ay tahay meheradda ganacsi een haysto ma bulaashay, waddankii imisaan ka dhistay, middaa ay maanta igu weyn tahay, geeridu markay ii timaadana middaas ay igu weynaanaysa. laakiin hadday maanta igu weyn tahay, war wiilkanan gacanta hayo iyo gabadhan in la halgamayno kulligeen, ee masaajidka iyo allah aan ku keenayno, ee bay-addan 7 cishay meelaha joogaan waxaanoo dhan ay riixayaan, annaguna aan la halgamayno, diintooda maxay noqon doontaa markaan dhinto? hadday middaa ay nagu culus tahay maanta, waanu ducaysanaynaa, masaajidaanu camiraynaa, macallimiintaan la shaqaynaynaa, ummad ahaan baanu isugu imanaynaa. su-aashaasuu weydiiyey. waxaan rabaa 3 qodob insha allahu tacaala anagoo waqtiga ilaalinaya inaan isdul taago, oo bal caqabadaha hor yaalla dhallinyaradeenna wax yar inaan ka tilmaano. waa midda koowaad. waxaan leenahay dhallinyaradeennu maanta waxay la korayaan xilli hujuum iyo weerar uu ku socdo diintooda, xilli hujuum iyo weerar uu ku socdo akhlaaqdooda, xilli hujuum iyo weerar uu ku socdo ruuxdooda. midda koowaad haddaan ka horrayno, xilliga maanta ay korayaan, taariikhda waddankan iyo xadaaradda waddankan qofka la socda, waa xilli cajiiba. waa xilli diintii masiixa kiristaanku ay hagaasayso, oo diinta ugu faafidda badan maanta ay noqotay ilxaadka, atheismka waxa la yidhaha. sidaa darteed waddankan maalin sanad walba hadda waxaa la xidhaa in ka badan 5,000 oo kaniisadood, waxayna dhisaan baa la yidhaha in ku dhow 2,000. taas waxa ay daraasadan covidka ka hor
hadda kaniisaduhu sidii bay u xidhmayaan wax dambe oo la dhisayana ma jiro. maxaan saa u leeyahay? waxaan saa u leeyahay annagu waxaan leenahay alxamdulilah kaniisadii waa la maaragtay masaajid baa laga dhigay, laakiin xaqiiqdu waxay tahay albaab baa furmay ka fitna badan oo ah waxaa sare u kac ku yimid oo kor u soo baxay ilxaadka. sidaa darteed maanta wuxuu camimay uu saameeyey manaahijta waxbarashada carruurteena, aflaanta kaartuunka ay daawadaan, maxaan ku idhahdaa halkudhegyada meelaha lagu qoro, waxaasoo dhan waxa weeyaan hujuum caqiidadooda ku socda. tusaalan insha allahu tacaala bixin dhalinyaro aan wax u dhigi jiray oo wadankii laga keenay waxay weydiin jireen markaan soomanahay macallin dawada ilkaha soonka miiga jabinaysaa. 5 sano kadib su-aashooda waxay noqotay macallin inaan soomo maqasaba. waxaan rabaa marka farqiga u dhaxeeya iyo saamaynta ilxaadku uu ku yeeshay da'yarta inaan wax yar baraarujinno. macallin ilkaha ma ku cadayan karaa markaan soomanahay dawadan? waa su'aal fiican. laakiin 5 sano kadib maxay noqotay maqasaba inaan soomo. wuxuu diidan yahay rukni dhan tiir dhan oo islaamka ah. intaasaa nagaga filan. waxaan leenahay waxay wajahayaan wujuuh maaragtay weerar xagga akhlaaqda. daraasaadku waxay tilmaamaan in second walba ilbiriqsi walba ma aha daqiiqad ilbiriqsi walba adduunka maanta in ka badan 28 milyan oo qof ay daawanayaan aflaanta xunxun. intaasaa nagaga filan. carruurtanaduna bay'adaasay ku korayaan, carruurtaasay la korayaan. marka taa waa inaan ogaano. waxay korayaan xilli jaamacadda Stanford ay leedahay maalin walba ilmaha waddankan ku koraya u dhaxeeya 9 ilaa 17 inay tahaan u malayn waxay arkayaan ama maqlayaan in ka badan 3,000 oo halkudheg. waxyaabahay ka hadlayaan waxa weeye marka koofiyadii waxaa ku qoran waxaa dooni samee, just do it. garankuu xidhan yahay waxaa ku qoran noloshu waa baashaar, life is a fun. noloshu waa ciyaar, life is a game. ilaahayna wuxuu leeyahay afa xasibtum ma waxaad moodeen in la idii abuuray inaad iska ciyaartaan. halkudhegyadaas ay akhrinayaan. moolasha markaan geyno muusiga dhagahooda ku soo dhacaya. dhakhtarka markaad u geyso sawaxanka xagga dambe ka baxaya. markaad dharka ciidda u soo iibinayso boorarka laamiga iyo haywayada taagan ay akhrinayaan, waxay saamaynayaan shakhsiyadooda, akhlaaqdooda iyo diintooda. adu waxaa tahay oday waddankii ku soo koray, waxaa laga yaabaa waxaa sistamkaaga inaanay gelin. kuwan hadda indhaha kala qaadayaan. taa waa inaan arno. qodobka kale ku xijinayna waxa weeyaan weerar ku saabsan xagga ruuxdooda. maxaa yeelay xadaaradda maanta adduunka jirta waxay wax walba ka hormarisaa jidhka bini'aadamka, sidii loo qurxin lahaa, wixii la gashan lahaa. shaarkan iyo kabahan ma isqaadanayaan, ma ismaajgarayaan iyo waxa lamidka ah. laakiin ruuxda xadaaraddan shaqo kuma leh. ruuxda xagga rabbiga ka timi subxaanahu wa tacaala ilaa rabbigee dib loogu xidha mooye ma degto. sidaa darteed madhnaan xagga ruuxda ah ayay wajahayaan carruurteeda. taa markay wajahaan waxay dawo ka raadinayaan iyo deganaansho. kiniiniyadan iyo maandooriyaashan midaana waxa weeye mid isdil iyo cadownimo dhexdooda aan keentay. siduu ilaahay yidhi shaydaanku maandooriyaha wuxuu u isticmaalaa an yuuqica baynakum alcadaawata waalbagdaa wayasuddakum can dikri illahi wa can isalaa. in waddadii iyo dhabbihii lagu abuuray uu kaa leexiyo, ciyaalkan uu isku diro oo iswada dilaan, ama weird gangs ama weird wax kale. wuxuu qur-aanku inoo sheegay. waxaan ku soo gebagabeynayaa maxaa xal ah oo 2 daqiiqaan isdul taagan insha allah. qodobka koowaad waxa weeyaan communication, iska warhayn. waalid iyo awlaad inaad wada joogtaan, in la wada joogo. communicationkan ka hadlayna ma aha wariyaa ma qureecatay, walaashaa maxaad u dishay, ma seexatay, ma aha. aabe iskuulka iga waran maanta. waxaan akhrinayay saaka daraasadda wasaaraadka waxbarashada ee gobolkan aad ku nooshihiin. kumanaan carruura iyo iskuulka waxay la kulmaan bullying, waxa la yidhaha maharowsi luqada soomaaliga lagu yidhaha, oo inta badan muuqaalkooda iyo diintooda ma la sheekaysatay. marka gabadha 7 sano jirtay khimaarka aan u xidhnay iskuulka u dirnay ma la sheekaysatay. aabba ii waran, iskuulka iiga waran, noloshaada iiga waran ma ku tiri. ilmo yar oo ku dhahaya gurigan ma joogi karo waa nacay, si seriously waa inaad u qaadato. iska warhaynta aan ka hadlayno waa midda noocaas. qur-aankuna tilmaamay ee ilmaha iyo aabbihii riyada xitaa xalay ku riyooday uu uga sheekeynaya aabbihii, sidii nabiyullaahi yuusuf uu yidhi aabe innii ra'aytu 11 kawkaba aayaadkan akhriyayni, xalay waxaan ku riyooday xidigaha iyo dayaxu ii sujuudaya. aabbihiina uu xitaa riyadiisa u turjumayo, u fasirayo, waana uga soo dhex saaraya. aabe riyooyinka caynkaasa walaalaha u sheegay. bini'aadamku waa qof iska maseer badan, dhib bay kuu geysan karaan. fiiri marka iska warhaynta. ama sida nabiyullaahi ibraahim oo aabba ah iyo wiilkiisa oo iyagoo wada socda uu odaygu ku lahaa wiilkiisa nebi ibraahim ismaaciil ku lahaa calayhi salaam. aabe xalay waxaan ku riyoodaa inuu mindida xaggaa kaa saaray, ka waran. uu leeyahay aabe haw bixin wax alla wixii riya ah
wax alla wixii wanaagayga samee wax alla waxaad u qaadato in lagu amray samee aabba waan kugu kalsoonahay anna waxaan noqon doonaa wiil fariido adag satajidunii in shaa allahu min asaabiriin qodobka labaad waxa weeyaan in carruurta intaanaan barin reerahay ka dhasheen iyo waxa lamidka ah aan dhahno ina allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aabba ilaahay wuxuu kuu doortay habdhaqan la yidhaha islaam midkaa ku mintay kadibna waxaan u sheegaynaa qodobka saddexaada islaamkaas in nolosheena laga soo dhambalo tawxiidka inaan akhlaaqdeena ka soo qaadano aanan akhlaaq ka qaadan halkudhegyadan iyo suuqa waxa la wareejinayo maxaa yeelay ilaahay baa yidhi alaa lahu alkhalqu waalamr waxa weeye makhluuqan iyo amarkaba ilaahay baa ma kala saarno tawxiidkan nolosheena kasoo dhambalnaa waxaan kusoo gebagabaynayaa marka qodobka u muhiimsan oo ah ilma aad dugsiga keentay keliya wax kuma xallismaan macallin qur'aanood ilmahaada ma aragtay aad moodi inuu isagu hayo kiniin markuu siiyo u saalix noqonayo adduunku sidaa uma shaqeeya axibbatii fillah adduunku wuxuu u shaqeeyaa waalid iyo awlaad iyo culimo iyo aqoon-yahan iyo bulshadu inay isu timaado masaajidkan ay saldhig ka dhigato fafiruu ila allah kadibna daraasaadka la wadaago la wada shaqeeyo ee koox keliya aan nagu hadlayn sidaa darteed bu ilaahay qur-aanka wuxuu inagu baray goortay kacbada dhisayeen nebi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam aabbe iyo wiilkiisu labaduba way isu yimaadeen inay mashruucan ka wada qayb qaataan iyagoo lahaa qorshe fog oo ah wa min duriyatina ummatan muslimatan lak ilaahayow dadaalkan waxaan uga gol leenahay qorshe fog oo ah ilmahaynu inay badbaadaan kuwa ka tafiirmana ay badbaadaan taa markaan samayno insha allahu carruurteennu waxay leeyihiin markay geeridu noo timaado aabe nacbudu ilaahak allahaadna bartaan ku xidhnaanayna wa ilaaha aabaa'ika ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxid aayaddu say tilmaamaysay ilaahii awooyaasheen nebiyada ahaa yaanu ku tiirsanayna caabudayna u hogaansamaynaa uma hogaansamayna wax kale wanaxnu lahu muslimuun ilaahaasanan ma aragtay isu dhiibaynaa ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa in uu carruurteenna ka dhigo kuwo rasuulka sala allahu calayhi wasalam matala oo diintiisana laabta ku qaata ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli wasallim wabaarik waanum calaa sayidina ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون